ka hadlayaa iibintii sheekadii iibinta lagu sheegay shidaalka in shidaalka la iibinaa lagu sheegay Soomaali sideedaba gebigeedaba waa naag reer diida qabta naag reer diida qabtana ayadoo iska qaylqaylinaysa baa laga dhaqmaa madaxweynaha waxaa loo baahan yahay in uu maaragtay aanu qofna dhigshal qusiinin wixii maaragtay markaa ku soo dhaca oo niyadiisa wanaag uu arko inuu sameeyaa sidaadana madaxweynaha laguma qayli karaba ay dadku asiga amiir ka dhigtay asiga horjooga ka dhigtay ilaa uu kufri cad kala yimaado oo maaragtay oo ishaaxeeday diinta oo maaragtay diinka baxa ilaa uu kala yimaado ciidiba kama daba hadli karto dadkan dhahay waxa weeye shidaalkii baa meel cad lagu gabagabeenaya caynka weey saa oo qaylqaylinaya waxa weeye shaarinkooda qofu dhig shaqo siimayso saamaxa yeelay amiir shalayga ka dhigtay ayaga horjooga ka dhigtay maantana wax alla wuxuu maaragtay sameeyo waa inay habi ku noqdaan ra'iisul wasaarana ka daba hadli karin wasiirana ka daba hadli karin xildhibaanana ka daba hadli karin shacabana ka daba hadli karin ilaa uu kufri cad kala yimaado Soomaalida maanta qaylinaysa waxaa laga yaabaa oo maaragtay qurbaha iyo meelahaas joogaan in ay ciyaalkoodii aanay xataa dhihi karin wareey inta ka soo bax oo maanta lagu la xisaabtamayo la leeyahay wareey maxaad ula hadashay cunuga yaa la hadalku yiri maanta in la leeyahay oo ay leeyihiin markii maaragtay iskuulaadka ay u diri tagaan aabbow amba hooyay ha ii sheegin maaragtay sidaa hadhiine haahay ay leeyihiin cunugoodii baryayaana la arkaa haddana intay maaragtay calanka ku soo gabadaan ay leeyihiin ay loolayaan asay leeyihiin waxaan waay waxbaa la waxayna warinta soo qarni Soomaali maaragtay shaaxada adduunka ku factaa waxa weeye oo mulq maahan oo aqladan waxa weeye shaaxada waa isku qanri inkastoo dadkeedu maaragtay shaaxada oo kala facun yahay hadana dadka maanta dunida jooga inta dunida hadda maanta inta ku nool Soomaali intay dadkan jireen hormareen Soomaali ayaduna waa jirta hadday maanta shidaalkeeda oo maaragtay haba yaraadaan boqolkiiba 30 boqolkiiba 50 waxa maanta xataa ay haysan lahaayeen oo dadka ay dadku sida ay maaragtay horumarka ay gaareen oo kale ayaguna gaari lahayn warada maanta dii lagu yiraahdo iskaba dhaaf maanta aduu Soomaali ma taha ciidana kaama doonaysa shidaalkaaga kheyraadkaaga aduu la soo bax maanta dii lagu yiraahdo ma la soo bixi kartaa lama soo bixi kartid waxaad u baahan tahay aqoonyahan u baahan tahay ilaa aqoon ma lihid waxaad u baahan tahay maaragtay qof oo ku hagaajiso oo maaragtay kula macaamisho oo barnaamijka waxa weeye ku hagaajisaad u baahan tahay Soomaalida iska qaylqaylinaysa maanta ra'yigeedu waxa weeye sheeg aad u liitaa Soomaalina waxa weeye waxa ka buuxa isnacaybka ayada kala diray daraado maaragtay dawladdeedu markay dudumiyeen baa wali ka dhax qaylinaya marka waliba dadka ugu sii daran ugu qabyaalada waliba qanqayga ay uga jirto waa dadka wadamada kale oo amba Afrika ha ahaadeen amba maaragtay Yurubka ha ahaadeen dadka meelaha jooga ugu wacan sababtoo ah ay waxay haystaan wax yar oo maaragtay cayir ah war cayrta leedin si haaya xataa lafteedaas iyada maaragtay leedin qoraaho oo maaragtay aan la idin kaga tagaynin oo wax cayrta leedin siinayo laba maadaba waa leedin ka rabaa laba maadaba cayrtad ku qaadatiin hadda ogtiin hadii kale midi waa caruurtiina oo la rabo in maaragtay diinka oo maaragtay la dhaafsiyo oo maaragtay diinta Kiristaanka lagu jinjeeyo mid labaad waa wadankaagu inuu maanta oo maaragtay wadan qani uu yahay dabadeetana waxa weeye shaqo oo la rabo in wadankaaga ultimada waxaad wax ku helayso wadankaaga qani la oo maaragtay adiga dan laga leeyahay wadankaaga laga leeyahay iyo caruurtaada dan laga leeyahay ama diinta laga saara okay ilaa maaragtay waad aragteen markii loo doodayo qof oo dad loo doodayo 15 sano 18 sano markuu gaaro 18 sano markuu gaaro xaraliya naga dhaaf waxa weeyaan 18 jir buu gaaray marka waa ka baxay anaga waqtigeeni oo maaragtay meeshiisa nooga celiyo 2 jirka 3 jirka 7 jirka loo baahan taa waxa cadeynaysa macnaha 18 ninku markuu gaaro waxa laga wadaa diintiisa ku adkaado midkan lama bedeli karo marka waad aragteen caruurta iyo naagaha inay ka daba ordayaan okay marka wadan saas had maanta joogtiin oo caruurtiina maaragtay diintooda in lagu jinjeeyo la rabo asaad wili idin la siiraysaa in Soomaaliya aanay horumar taaban ayaad raali ka tiin asaad qaylinaysiin waxaan idin leeyahay dadkiina qurbaha ku nool inaad ka fikirtaan waliba oo caruurtiina sidii maaragtay aad heer ku gaari lahaydeen aad ka fikirtaan oo aadan maanta madaxdiina aadan mucaaradinina siyaasiyiintana waxaan leeyahay